Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xiran KM Studio meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan. Guys, maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno kareemakan Skullcat iyo Nirman iyo Tefacto maxay jirka u daraan, maxayse caawiyaan, maxayse daawo u yihiin. Guys, intaan barnaamijkeen u guda galin waxaan idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan, noo like gareysaan. Maanta mawduucan wuxuu quseeyaa dumarka oo keliya. Haddaba ku horumar barnaamijkeena hordhaca sidaan idinku sheegnay, maanta waxaan doonaynaa inaan mawduucan u khaas yeelno dumarka, maadaama haweenka Soomaaliyeed intooda badan ay ku nugul yihiin gadgaduudka, fimanka, xasaasiyadda, xataa qaar jiraan cambaarta oo kale. Marka waxaan doonaynaa inaan mawduucan ka dhigno mid dumarka keliya u khuseeyo. Haddaba barnaamijkeena haddaan u guda galno, kow horta kareenka la yiraahdo ama deeqadan la yiraahdo Skullcat waxay u fiican tahay cambaarta, xasaasiyadda, gadgaduudka oo wejiga iyo nabraha. Deeqadan waxyaabo badan ay faa'iido u tahay. Waa hal shay oo dhowr shay daawo ah. Fimanka wejiga loo isticmaalaa, xasaasiyadda waa loo isticmaali karaa, iyo cambaartana sidoo kale waa loo isticmaali karaa. Iyo waxyaabo kale oo badan ay jiraan. Marka runtii anaga hadda waxaan kusoo koobnay waxay tahay dumar badan, inta badan dumarka waxay ka caawidaan gadgaduudka wejiga ka gala iyo xasaasiyadda iyo nabraha. Taasna runtii waxa ugu bogi kartaa Nirmanka iyo Skullcat iyo Tefacto. Nirmanka maxay qabataa? Nirmanka waxaa loogu talagalay ayada gadgaduudka wejiga kaaga dhaco oo ay nooc daawo ay ku keento, ama ha noqoto daawo ama ha noqoto mid oo maxaan ku yiraahdaa qoraxda. Nirmanka sidoo kale waxaa kale oo u fiican tahay nabrada wejigana way ka baabi'inaysaa. Runtii horta wejiga gadgaduudka leh iyo wejiga nabrada leh runtii waa weji saliid leh, laakiin weji oo haaro galaayo oo haaro baabi'inayo oo haaro leh haddaad aragto waa weji asigana daraaya. Daraagana wejigiisa ayagana gooni ugu soo hadli doonaa, laakiin waqti xaadirkan waxaan mawduucan aan taaganahay inaan ka baxno ma rabno. Nirmanki asigana saan ku sheegnay inta shay u fiican tahay. Marka haddaad isku qabsato Nirmanka iyo Tefactaha iyo midaan kale oo Skullcatka, xasaasiyadda iyo gadgaduudka iyo nabrada iyo waxaas oo dhan uguma baqanaysid oo dhaqsi ugu bogsoonaysaa. Sababtoo ah gabdhaha inta badan waxay ku leeyihiin xasaasiyadda qabnaa, gadgaduudna waa nahayaa. Haddaad daawooyinka marsanan wayna dhibayaan, laakiin intaas maanta waxaa qabtiraysaa baayada iska baabi'inaysa waa Skullcatkan aad iyo Nirmanka aad isku darsato. Waxaa ku yiraahdaa xasaasiyadda, maxaan ku yiraahdaa gadgaduudka, maxaan ku yiraahdaa fimanka wejiga, intaba meel ay ka fuulayaan. Hadda Tefactada ku darsatana sidoo kale way fiican tahay. Tefactada inkastoo ayadana xataa oo ka baabi'inaysa xataa haaraha loo isticmaali karaa, laakiin ayadana waxa lagu dari doono gooni ugu soo hadli doona. Haddaad jeceshihiin inaan kasoo hadalno qaybta hoose commentiga noogu wadaag insha Allah. Marka waxaan doonaynaa marka inaad ka faa'iidaysataan wejigiina labadaas boomaato iyo halkaas kareem fadhi haddaad isku darsataan, gadgaduud iyo fiman waa isdiinaysiin iyo xasaasiyadda. Marka xasaasiyadda zaid haddaad qabtid waa isticmaali kartaa Skullcatka, nabraha sidoo kale iyo gadgaduudka intaba. Marka asxaabta noogu xiran qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo isticmaala daawooyinka wejiga oo gadgaduudka baabi'iyay oo wejiga gadgaduudka ka bahdilay, runtii maanta waxay ka dambeeyo ka walwalaaw gadgaduud, xasaasiyad iyo nabraha wejigaba. Marka intaa waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena. Wixii su'aalahooda qabtaan qaybta hoose commentiga noogu wadaag insha Allah. Channelkana hala subscribe gareeyo, hala like gareeyo, hala share gareeyo. Runtii kareemakan oo ujeedaan goob walba oo cosmetics inaad ka heli doontaan ayaan rajeynaa insha Allah. Haddii aad heli karin, haddaad Muqdisho joogto, haddaad gobolada joogto oo kale, waxaad nagala soo xiriiri kartaa dukaanka Saatiya Cosmetics oo linkiga qaybta hoose aan soo dhigi doono insha Allah. Contactiga waxa walba meeshaad kala xiriiri doontaan insha Allah. Qofkii gobol jooga iyo qofkii Muqdisho joogaba Soomaaliya intii joogto waxaa waaye maanta wixii ka dambeeya waxaa waaye ha u walwalaanin wejigaaga insha Allah. Waxaan ku rajeynayaa adeeg gadgaduud iyo waxaas inaad ka nasan doontaan. Marka intaan barnaamijkeena kusoo koobaynaa waadna mahadsantihiin. Markale waxaan idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan, noo like gareysaan, cimaamad ugu turtaan fikradihiini qaybaha hoose ee commentiga insha Allah. Waadna mahadsantihiin.